Asalaamu calaykum kusoo dhawaada Soma Design and Marketing. Maanta waxaynu tusayaa sida albaabka loo jabiyo markaad ganacsi cusub bilaabaysid ood si xooga market hore u jira aad kusoo gelaysid adigoon ka baqanaynin competitionka jira. Xitaa maanta waxaan idin dooray laba company oo sidaas sameeyey oo maanta ku fadhiya billions, hadda wada B not millions maaha, ku fadhiya billions oo welibana iibiya wax maanta adiga gurigaaga aad ku iibin kartid ka waran. So videogan dhammaadkiisa waxaan idinla qaybsanayaa sidaad adiguna ku samayn kartid, laakiin iminka waxaan isla gudagelaynaa labadan tusaale si aad u aragtid sida marketka kusoo galeen. Labadan company horta waxaanu ka eegaynaa saddex wax. Saddexdaa wax waxa weeyaan marketingkooda, brandingkooda iyo targetingkooda. Waa saddex wax muhiim u ah markaad soo gelaysid suuq hore u jiray oo adigu aad ku cusub tahay meesha sidaad adiguna lacagtaadii qaybtaada ugu soo geshid. Labada company ee maanta tusaalaha inoo ah waxaa la yidhahdaa Crumble Cookie iyo Olipop. So halkaasaan ka fiirinaynaa targetingkooda, marketingkooda iyo brandingkooda. So intaynaan u gudagelin koox yaryar oo badan marka waxbaan ka garanayaa suuqan dadka bilaabaya ganacsi cusub oo runtii mar walba dareemo confused ama inay dareemaan kalsooni darro inay kalsooni la haysanin. Marka waxaasoo dhan bay kaa caawinaysaa markaad suuqa soo gelisid inaad albaabka jabisid si xooga kusoo geshid. Aynu bilowna markaa. Maanta waxaan isla eegaynaa saddex shay oo labadan company runtii ay si fiican u sameeyeen markay soo geliyeen suuq horey u buuxay. Saddexdaa shay saan hore u sheego waxa weeyaan marketing oo ah suuqgeynta, waa branding oo ah sumcadaynta af Soomaali iyo targeting oo ah bartilmaamis sida ugu fiicanan u turjumi karay. Marka haddaynu ka bilowno Crumble Cookie se wax u sameeyeen. Waxa ugu horeeya aan ka bilaabayno waa Crumble Cookie waxa ay sameeyeen dhanka targetingka. So targeting haddaynu ku bilowno waxa weeyaan bartilmaamiska. Haddaad u fiirsatid companygan horta haddaad hore u garanaynin waa company samaysa cookies ama macmacaan kala duwan. Waxay ku bilaabeen kow inay buskud keliya sameeyaan. Hadhow waxay u gudbeen inay keegag yaryar iyo waxa sameeyaan. Laakiin adigu waa company macmacaan samaysa waa sida bakery oo kale. Laakiin targetingkooda ayaa cajiiba. Waxay sameeyaan markaa ma tilmaamsadaan dad waayeela ama dad maaragtay sportska ciyaara. Waxay tilmaamsadaan dad dhalinyaro ah welibana dad ku jira social media oo noloshooda ma la odhan karo malaha inay tahay inay maanta oo dhan scrolling ku jiraan oo maanta oo dhan sidaa u wadaan bahalka. So basically iyagu targetkooda waxa weeyaan dhalinyarta especially dhanka TikTok iyo Instagram. Labadaa meelood bay aad ugu dheereeyaan inay feedka ku jiraan maanta oo dhan xoogooda iyo maaragtay maalkoodaba halkaasay geliyaan. Siday usoo jiitaan targetkooda oo ah dhalinyarta waxay sameeyaan markaa wax la yidhaahdo experience. Buskud keliya kuma soo hordhigayaan. Waxay ku siinayaan experience. Experience-kaas oo ah inay maaragtay week walba soo saaraan macmacaan cusub iyo biskudyo cusub iyo keegag cusub inay usoo bandhigaan dadkan targetka u ah. Waxa kale xooga saaraan waxa weeyaan inay ka dhigaan wixii sawirro qurux badan marka in laga qaadi karo buskudkii markaad heshid buskud yaroo qurux badan oo aad soo rabtid inaad ka qaatid ama la geshid ba si aad social mediahaaga usoo dhigtid. Waxa kale sameeyaan inay u bixiyaan magacyo yaryaroo soo jiidanaya dadka ayagu ay tilmaamsanayaan. Waxa kale sameeyaan inay flavorka ama dhadhanka ay bedelaan isbuuc walba siduu qofku isku weydiiyo isbuucan talow maxaa jira. Maba waxta u baahna taas waan isla geli doonaa. Siday u abuureen culture dhan oo sugaya isbuuc walba waxa cusub ay soo saarayaan sida iyaguna u dhadhamiyaan ay u helaan experience-ka. So targetkooda runtii waxaa la dhihi karaa si fiican bay u sameeyeen markuu yahay dhanka dhalinyarta. Aynu sii gudubno my favorite part qaybta brandingkooda. Horta brandingkooda aad iyo aad baan ula dhacay sidaad halkan ka aragtid. Waxay yidhaahdeen markii la weydiiyey about brandingkooda runtii imika noqday iconic. Waxay dhaheen waxaan rabnaa ina second lagu fahmo inay companygani tahay Crumble oo hore loo aqoon jiray Crumble Cookie laakiin imika loo yaqaano keliya Crumble sidaad ka aragtid loogadooda. Colorkoodan gaarka aan waxa u sameeyey company la yidhaahdo Pantone oo ah color authority-ga adduunka oo dhan kalarada u ah authority ama u samaysa. Kalarkan khaaska ee aad aragtida pinkigaana qof kasta ma isticmaali karo. Waxay ku samaysteen trademark. That means iyaga keligood baa isticmaali kara oo meelaha qaar haddaad Yurub iyo Maraykanka iyo meelaha qaar aad joogtid waxay ku geyn karaan maxkamad haddaad kalarkooda ka qaadatid. Marka kalarkoodu waa kalarka yare xoogan ee pinkiga ah. Waxay haystaan laba kalar oo kale oo ah black and white oo contrast siinaya.
waxa iyaguna xooga saarayaan runtii sanduuqa yar ama boxka yar ee pinkiga in laga fahmo meel fog markaad hal mar aragtid boxka yar ee pinkiga hadduu qof kugu soo socdo inaad fahantid basla markiiba waxa lagu soo wadaa crumble cookies so brandingkooda si fiican bay uga shaqeeyeen waa one of the best branding runtii marka la eego dhanka cookieska ama macmacaanka kambaniyada sameeya targetkoodana si fiican bay ula beegsadeen because saan sheegay targetkoodana wuxuu ahaa dhalinyarada so qaybta xigta imika oo ah marketingkooda so crumble cookie sidan ognahay waa dhalinyarta ayaa u ah target brandingkooda waan isla aragnay markay wax suuqgeynayaan ma tagaan traditional tv ama tvga caadiga because waad og tahay dhalinyaro ma daawanayso tvga caadiga so taas waxay kutusaysaa ogow meesha joogaan dadkaad bartilmaamsanaysid gidaar ha iska garaacin laakiin waa inaad ogaatid meesha joogaan dadkaad u baahan tahay so iyagu tv dhan xoog ma saaraan iskuma dhibaan waxay xooga saaraan saan hore u sheegay waa social media siiba tiktok iyo instagram labada meelood bay xooga saaraan waxa kale xooga saaraan waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo sugitaan oo la sugayo week walba waxa cusub ee soo baxaya waxay dhiseen runtii marketing ku salaysan sugitaan limited edition oo laga wado marka macmacaanka wiigan soo baxay inaana wiiga dambe jiri doonin so wiigan hadduu ku dhaafo uu ku dhaafay waxa kale sameeyeen hype waxa la yidhaahdo in sugitaanka ama wiigan wixii aad social media ka aragtidba inaad haddaad wiiga dambe sugtid ma helaysid so hype bay sameynaysaa inaad rabtid inaad maanta tijaabisid I know some of you waxaad dhihi kartiin maybe waxaan oo kale anigu iguma shaqaynahay laakiin ogow billion bay sameeyaan sanadkii ka badan marka dad bay ku shaqaysaa so marka targetka sameynaysid markasta hays odhanin waxaan aniga iguma shaqaynayso dad bay ku shaqaynaysaa so targetingkana saasuu ku fiican yahay waxay ku siinaysaa inaad og tahay aanad lacagtaada meel khaldan ku isticmaalaynin sida tv xayisiis oo kale laakiin aad ku isticmaalaysid meesha saxdaa ay joogaan dadkaad adigu u baahan tahay waxa kale ku dheereeyaan waxa weeyaan reaction video sidan halkan kaa tusayo videoyo oo dadkii intay helaan isbuucan macmacaankii soo baxay inay furayaan tijaabinayaan hadhowna la qaybsanayaan dadka kale daawanayana inay dooni doonaan hadhow inay dukaanka tagaan soo iibsadaan iyaguna tijaabiyaan marka this reaction videos iyo boxkan yareel pinkiga la furayo iyo maxay heede waxoo dhan iyo cookiga quruxda badan eead rabtid inaad soortid xitaa waxoo dhan waxay ka mid tahay marketingkooda so taasna si fiican ayay u execute gareeyeen ama u sameeyeen oo maanta la odhan karo company adiguba maanta gurigaagaad ku samayn kartid oo sameeya buskud ama cookies inay gaadhaan billion wax ka badan sanadkii marka aynu sii gudubno next company aynu isagana ku eegno saddexdii tiir kii horena ku eegnay companygan waxaa la yidhahdaa olipop waxay iibiyaan fizzy drink ama soda kolba saad u taqaanid sharaab bay iibiyaan so iyagu runtii waxaa la dhihi karaa aad iyo aad bay iyagu laftirkooda u fahmeen targetingkooda haddaan ka bilowno so iyaga targetingkooda waxa weeyaan dadka daneeya caafimaadka dadka daneynaya inay cabaan adigu sharaab sida soda oo kale laakiin raba inaanu ahayn wax dee kuu daran oo sonkor badan ama xumaan badan ay ku jirto so dhanka caafimaadkaiyo waxay ka eegayaan haddaad u fiirsatid targetingkooda wuxuu la hadlayaa dad gaara oo leh dabeecad gaara siiba waxaa la odhan karaa malaha wuxuu la hadlayaa dumarka taasna waxaan kasii fahmi doonaa dhanka brandingkooda laakiin aniga siday la eg tahay targetkooda waa dumarka oo maaragtay daneynaya wax caafimaada wax dabiiciya inay cabaan oo stilna ah sida faanto oo kale koola oo iyo spride oo kale laakiin aan dooneynin macaankaas adag iyo aan caafimaadna ku ahayn so targetkoodu waa kaa aan isla egno brandingka olipop brandingkooda horta waxaa la dhihi karaa waa mid caqli badan uma eka healthy drink caajis ah brandkoodu waa wuxuu egay adigu retro nadiif aesthetic qurux badan lifestyle aad rabtid inaad talaagad iska gashatidba markaad aragto olipop ma dhehaysid waa soodho keliya waxaad dhahaysaa waa mid ka duwan runtii soodayaasha kale aad ku aragtid malaha dukaanka so waxay ugu talagaleen brandkoodu inuu isha soo qabsado markuu saaran yahay shelfka aad dukaanka joogtid asaa u eegisid kambaniyada kala duwan ee soodhaha kan runtii waxaa la odhan karaa si gaara ayuu ishaada usoo qabanaya so iyagu waxay xoogga saareen lifestyle dadkay kusoo jiidanayaan dumar dhalinyaro daneynaya caafimaad daneynayo wax qurux badan inay gacanta ku hayaan ama inay talaagada gashtaan oo guriga u yaalo so dadkaasoo kale maadaama soo jiidanaysid waxaad doonaysaana inay ishooda kugu dhacdo so dukaanka markuu sidaa u yaalo inay ishaasay ku iibinayaan marka maadaama iyaguna ay soo galeen suuq already dad waaweyn ay ku jiraan aad garanaysid sida coca-cola company fanta spride
waxay ahayd inay runtii xoogga saaraan ay kala baxaan marketka sheerka iyaga u baahan yihiin aanay dadka kaleba danaynaynin laakiin dadka iyagu danaynayaan inay ishooda ku dhacdo so marketingkoodao dhan iyo brandingkoodao dhan runtii wuxuu ku salaysan yahay inuu ishoodu kasoo jiito dadka gaarka iyaga u ah waxba kama gelin iyago dadka faanta doonaya cocacola doonaya laakiin dadka gaarka ah si fiican ay usoo qabsadeen iyaga laftirkoodana waxay ku fadhiyaan bilyan ka badan sanadkii waana combany la aas-aasay 2017 oo combaniyo badan ay ka horeeyeen runtii markaa waxaa la dhihi karaa market sharekooda si fiican bay u qabsadeen haddaan isla eegno olipop marketingkooda runtii marketingkooda waa mid degan waa laakiin xiise badan leh ma qaylinayo mana isticmaalaan t v xayeysiis culus waxay xoogga saaraan waxa weeyaan influencer in isticmaalaan siiba influencer sida dadka iyaga ay tilmaamsanayaan oo kale inay sharaabyadooda waxay isiiyaan inay dhanka inay yihiin dabiici oo kale isku xayeysiiyaan backagingkoodu horta wuxuu u yahay muhiim backagingkana waxaan ka wadaa sharaabkoodu containerka ku jiro xitaa siduu u eegyahay wax kasta waxay saareen time bay geliyeen way ka fikireen lacag badan bay geliyeen inuu noqdo markuu meel yaallo kaad dooranaysid iyagu kuma dhahayaan kaala igu soo orod laakiin waxa weeyaan adiga iyo ishaada qofkii maaragtay bar tilmaamsadeen inuu il ahaan keliya iyo waxa ku qoran inuu yahay dabiici caloosha u fiican waxaasoo dhan keliya inuu qofkaasi kusoo qabsado so marketingkooda waxaa la dhihi karaa siduu u culus yahay maanta sheer buu ka haystaa cocacola iyo bebsi iyo fanta waayo cocacola xitaa waxay isku dayeen laftirkoodu inay soo saaraan sharaab sida iyagoo kale iyo dadka iyagu bartilmaamsanayaan oo kale inuu isagana bartilmaamsado waayo wuu u fiirsaday waanu arkay wuxuu samaynayo olipop inuu shaqaynayo so marketingkooda runtii waa marketing yaroo degan qurux badan aad baa laftirkiisa uga helay si fiicanna wuu u shaqaynayaa so labadaas combany runtii waxaan idinku dooray waa wax maanta adigu aad samayn kartid hadday tahay buskud combany hadday tahay sharaab combany adigu xitaa aad maanta ku fadhiin kartid million ama billions of dollars insha allah marka anigu taladeedu waxa weeyaan haddii aad tahay combany cusub oo productgaaga ku diyaar yahay halkaa shaqada kumay dhammaanine halkaasay ka bilaamatay haddii aad rabto inaad suuqa si xooga ku gasho garo targetkaaga dhis brand cad samee marketing joogto ah crumble cookie iyo olipop may ku guulaysan keliya productay sameeyeen waxay ku guulaysteen inay fahmeen dadkay bar tilmaamsanayeen soo sidaa yeel inaad fahamtid dadkaad bar tilmaamsanaysid meesha joogaan cidday yihiin iyo waxa iyaga soo jiidanaya ha ahaato brandingkaaga ha ahaato marketingkaaga intaasaan kugula talinaya hadday tahay combany cusub I hope you like this video and please share comment like everything dadku dhahaan markay sameeyaan video insha allah waad mahadsantihiin inaad ilaa halkan daawateen waa inooyo videoga xiga insha allah asalaamu calaykum